Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta ku xiran janalka FIFA Soomaaliya waxaan leeyahay galab wanaagsan. Kusoo dhawaada musalsalkii afarta walaal qaybtiisii 72. Qaybtii hore waxay ku go'day oo dhammaad lagu soo qoray 71aad, balse musalsalka isagoo afar gasha ayuu socdaa maadaama dhalinyarta iyo mataqaanaa asxaabteedaba aad ay u jecel yihiin daawashadiisa iyo ku xirnaashihiisa. Waxaan leeyahay maanta kusoo dhawaada qaybtii 72. Waxaan codsanayaa asxaabta ku cusub janalka FIFA Soomaaliya inay subscribe saaraan, lacag dhahaan fikirkoodana ay wala wadaagaan qaybta hoose ee commentiga. Kuwa hore u xirnaana waxaan leeyahay ku mahadsantihiin ku xirnaanta janalka FIFA Soomaaliya. Kusoo dhawaada qaybtii 72 musalsalka afarta walaal. Sida ogtihiin booqadeer waxaa lagu nabay dilkii Rani oo Caakif ku nabay Darogna waxaa loo sheegay in dilkaas qadir oosan geysan oo aabihiis ka dambeeyay. Waxaan u sheegayay wiilkii ay qolka ku xiraayeen ee ka fakada qolka oo ahaa Tolga. Waatan guryihii ciddi lagala baxay qadir adeerkiis iyo walaalihiisba guryihii lagala baxay walaalihiis mataqaanaa kuleej agoonta ay tageen, adeerkina islaan habeertooda gurigooda ay guureen. Waxaa dhacayso intaas kadib in isbitaalkii oo u yeelo ninka la leeyahay Caakif nin ilaalo ah marka oo soo kaca Irhaan si oosan markhaati ugu furin, qofka dilayna oosan u sheegin. Qadir arrintiisii maxkamaddii waatan ay ku xukuntay xabsi. Irhaani ayaa mataqaanaa xoogaa soo yeeshay miir iyo dhaqdhaqaaq yar, balse wili hadalkii aanu hadlin. Qadirna wuxuu u xidhan yahay ninkan caafimaadkiisa maadaama ninkan uu yahay dhibanihii dhibka loo geystay. Isiga ayaa cadday kara qofka dhibka u geystay ilaa mataqaanaa ninkaas oo ka soo naxana Qadir waxaa lagu xukumay xabsiga. Cumar wuxuu bilaabayaa in uu u shaqeeyo labadii gabdhood Aasiya iyo gabadha yareed oo walaalihiis ahaa, in uu u shaqeeyo oo noqdo cameraman, nin dadka sawir ka qaada, in uu noqdo oo u shaqeeyo waxay cunayeen mar oo ku biiro mataqaanaa kuwa gangiisara oo daroogooyinka mataqaanaa kala gudbiyo. Dhibaatooyin fara badan ayaa lasoo darsaya isagana dadaalkii mataqaanaa walaalihiis intii walaalkiis xiran yahay oo ku dadaalayay. Waxay isweynayaan asxaabtoodii daroog iyo isheeg iyo Aasiya way isweynayaan. Qadir waa la xiray Malisa problem gooniya haysto oo iskuulka way ka baaqatay oo iska dhaaftay aadistiisii maadaama ay weysay jaceylkeedii dambiil laga dhigay. Marka daroog wuxuu bilaabay dabagal ayuu wuxuu ku bilaabay isagana aabihiis Caakif uu ku bilaabay maadaama loo sheegay qofka dilay Irhaani inuu yahay aabihiis, Qadirna uusan dambi lahayn oo u sheegay Tolga. Isagoo tii raba in uu kasal gaaro ayuu wuxuu bilaabay aabihiis si qarsoodi ah in uu baaritaan ugu sameeyo dad oo daba dhigo isagana oo ilqaasa ku fiiriyo si dambigan lagu soo sheegay aabihiis uu u ogaado maadaama horey aabihiis oo wax ugu qariyay fiidiyoogii oo lagu soo diri jiray daroog kombyuutarkiisa. Marka daroog hadda dadaal ayuu wadaa. Daroog wuxuu ku dadaalayaa siduu u heli lahaa jaceylkiisa Aasiya, walaalkeedna uga dhigi lahaa dembi la'aan. Hadda wuxuu gasha ka siibtay seefta aabihiis dembiyada lagu soo oogay iyo kuwa hore ugu qariyayba si macnaha uu ogaado darteed ayuu hadda dadaal badan iyo juhdi badan gelinayaa meeshaas. Laakiin asxaabtii way iswaayeen. Harikana hooyadii Suusaan iyo idii waatan faqri la soo darsay. Waxay degan yihiin meel lagu quudiyo dadka tabarta yar ee aan hantida lahayn. Iyadana waxay markaan awoodi laadahay barashada iskuulka. Waxaan dib idinkala soo socodsiin doonaa qaybta 73 oo ku mahadsantihiin daawashadiina.